السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. إلهي بانكم هذيننا ولا ليال annakana na waafajiyey inaan ilaahay dartii nin soo booqanno, ininkana ini waafajiyey inaad ilaahay dartii aada noo soo dhoweysaan oo ilaahay dartii masaajidka aan ugu wada tukanno, ilaahay dartii aan u wada fadhiisanno. taasaa nicmo weyna. xadiis alqudsi baa ilaahay yidhi: wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا. وحديث القدس إلهي بالك هو أنا قدرت اسكو جعل، أنا قدرت اسكو زيارنا، أنا قدرت اسكو بوقنا. إلهي بالك القعيل كي يا واجبي فدقا أن إلهي درتي أنو وذا فريساني أيان إلهي جل وعلا جعل الذي سيرضيه سأنكم متيسنين إن شاء الله. ilaahayna kulligan waan u wada baahannahay. mar walbana waxaa laynaga rabaa ilaahay inaan garanno oon ilaahay jalla wacalaa aan ugu mahadnaqno nicamta ilaahay uuna siiyey. aadam calayhi salaam markii ilaahay nebi aadan uu abuuray, ereygii u horreeyay nebi aadan afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa alxamdu lilaah. markuu hindhisooday, qur-aanka suuradda ugu weyn, acdam suura fi kitaab illaahi caza wajalla waa suuratu alfaatixa. ayaduna bacda albasmala waxay ku bilaabantaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. mahad dhammaanteed waxay u ahaatay lilaah, caalamiintoo dhan allihii rabbiga u ahaa. ahlaljannuhu markay jannada ay galaan iyo ka laftigoogu hadalka u dambeeyay odhan doonaan: wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. markay ilaahay baryayaan ee ilaahay ay ugu shukrinayaan badbaadada ilaahay uu ka badbaadiyey dhibaatadii qiyaamaha iyo naartii, ee jannana ilaahay jalla wacalaa uu dhaxal siiyey, bay odhan doonaan: wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbana lagafuurun shakuur. banka qiyaamo khalqiga markay joogsadaan ay kulligood isa soo wada taagaan, hadday ahlaljanno ay yihiin iyo hadday ahlalnaar ay yihiin, intuba ereyga u dambeeyay ay odhan doonaana waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarshi yusabbixuuna bixamdi rabbihim waqudiya baynahum bilxaqi waqiila alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ahlaljannuhu jannada ay mutaysteen, jannada ay heleen, badbaadada ilaahay jalla wacalaa uu naarta iyo dhibaatada uu ka badbaadiyey ku xamdinayaan. laakiin ahlanaarku maxay ku xamdinayaan baa la yidhi? ahlanaarkuna cadliga ilaahay markay arkaan bay xamdinayaan. wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid. naf walba halkaa waxay la timiday baa laga abaalmarin doonaa. afdalu ducaana wuxuu nebigu yidhi inay tahay alxamdu lilaah. afdalu dikri laa ilaaha ila allah. cibaadada qowliga ta ugu fadli badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa laa ilaaha ila allah.
وأفضل الدعاء الحمد لله بريا إلهي لبرينا وحاوق فضل بدن إن تراد المر والبا الحمد لله لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي بالعداد شكر دان ونعمة دا أن نسيي يقول شكر دان با إلهي أنون ونزي أدنيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا أورنجري صدح هايلو بن أبو أورنجري صدح با إنك حدا استغفار با إلهي واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما استغفارتها كتجن با لغا يري إله آد بريسا مر والبا آد نقونيسا حقيسا والله دافد بدن ونحريس بدن ويان أدعوني أستجب لكم با إلهي يري إبويديست أنيقو إبريا أنيقو نواني نغا أجيب يا دعادي ني لئن شكرتم لأزيدنكم هذا نعمتي إذا يقول شكر دان با إلهي يري أنيقو نواني بيرنيا دنبيلاته مر والبا دنبي وكاسو دعيا marka istighfaarta ha ka tagin mar walba waxa tahay mid baahan baahidaada ilaahay u sheego ilaahay bari oo saacadaha ducada la aqbalay ducada ilaahay aqbalo ee ahadiista nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam nabigu noogu sheegay xilliga ilaahay bari oo baahidaada ilaahay u sheego salaada markii laga baxo ducada waa la aqbalaa roobku markuu da'ayo ducada waa la aqbalaa maalinta jumcada saacada ijaaba ku jirta habeen walba waxa uu nabigu noo sheegay inay ku jirto saacad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ducada aqbalayo uu leeyahay yaa waxay weydiisanaya hansiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa maaragtaan dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe saacadaha kaco ilaahay la munaajayo baahidaada ilaahay u sheego aqrab ma yakuna al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun faakthiru fihi ad-du'a faqiman an yustajaba lakum nabigu alayhi salatu wassalam markuu adoonku ilaahiisa ugu dhawaasho badan yahay waa marka sujuuda wajiga dhulka uu ku haye xilliga ducada badiya buu nabigu alayhi salatu wasalaam waxa xaqiiqa abu nabigu leeyahay xilliga ninka ducaysta ilaahay ducadiisa inuu aqbalayo walaalkaaga muslimka oo aan ka warqabin oo u ducaysa bidahar alghayb aad uga ducaysa oo ilaahay iimaan u weydiisa hidaayad ilaahay u weydiisa tawfiiq ilaahay u weydiisa barwaaqo ilaahay aad u weydiisa caafimaad ilaahay aad u weydiisa taasaana ugu ijaabo dhow nabigu alayhi salaatu wasalaam adigu walaalkaaga muslimka aan warkaa qabin markaad u ducaynayso korkaaga malag baa taagan mar ali markaad walaalka u ducaysidba walaka mithluhu malagi wuxuu ku leeyahay aamin ilaahu ducada aqbal walaka mithluhu adiguna waxaad walaalka aad u tiri adigana annaka ku nidhiyo aamin dhabu ku leeyahay malagu ducadaadaas adiga in la aqbalayo ilaahay baa garan laakiin ducada malag waa mustajaabo weeyaan markaad walaalkaaga muslimka isagoon ka warqabin aad u ducaysid waxaad walaalka ilaahay aad u weydiisid adigana malag baa ducada tul lamida kula dul taagan oo ilaahay kuu baryaya ad'uuni astajib lakum ibarya baa ilaahay ku leeyahay ducadina waan aqbaliye marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waa inaad tiraadid alxamdulilaahi rabbil aalamiin maanta innaka su'aasheena badan baahideena badan waxa dadku inta badan ay eegaan inta nicmada ka maqan bay eegaan inta nicmada ay haystaan ma eegaan nicmada araga nicmada maqalka nicmada caafimaadka nicmada insaaniyada nicmada arsaaqada wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha hadii nicamta ilaahay nagu galadeysay hadaad tirisaan ba ilaahay leema soo koobi karaysaan ilaahay bay noo nicmeeyay marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu waa maxay waa inaad tiraadid mar walba alxamdulillaah ala nicmat al-iimaan wal-islaam waliba nicmada ugu weyn ilaahay jalla wa ala uu nasiyay waa nicmada islaamnimada weeyaan dad badan oo maanta muslimiina nicmada ma qadariyaan nicmat al-islaam haddaan garan lahayn oo hoos u eegin lahayn iyada nicmo inoogu filan مثقال ذرة من إيمان قفك قلبك مثقال ذرة من إيمان وخيرا أما إيمان أو قلبك سكجري الدنيا كتجب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي جنة وحى وكسيا جقل لك الدنيا توبان كيل لك بجنة إلى هاي كسيا موسى عليه السلام إلى هاي وكي بريا يري كلمة كوكو بريا يسي مركاسا إلى هاي كوير يا موسى وحاتر هذا لا إله إلا الله ده
markaasuu yaa rabbi addoomahaga wan wanaagsan kelmadan way yidhaahdaane tuga aniga ii gaaraysi oon kugu baryo markaasaa ilaahay yidhi yaa muusa toddobada ciriga toddobada dhul haddii la qaado miisaanka kafad la saaro kelmadaana kafadda kale la saaro kelmadaaba ka culus baa ilaahay ku yidhi xadiis saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa maalinka qiyaamaha nin ummadayda ka mida ayaa ilaahay banka qiyaamo kala soo dhex bixi doonaa waa laga soo dhex soocan doonaa markaasaa la hordhigi doonaa 99 diiwaan oo midkii la furo buu nebigu uu leeyahay ilka aragtay oo dunuub iyo macaasi ay ku wada qoran tahay markaasuu addoonku yaabaya markaasaa ilaahay ku odhan doonaa malaa'igtaydii camalka soo qoraysa may kugu xadgudubtay markaasuu leeyahay may igumay xadgudbina waxa meesha ku qoran oo dhan anigaa geystay afalaka cudrun haddana wax cudurdaara ma sheeganaysa markaasuu leeyahay maya balaa ina laka cindana xasanatan laa dulma calayka alyowma uxdur wasnaka agtayada hal xasano ayaad soo dhigatay oo kuu taalle halkan meeshan cidna laguma dulmiyo waa maxkamad weeyaan ilaaha caadilka ayaa ka taliya wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowma alqiyaama falaa tudlamu nafsu shayئa wain kaana mihqaala xabatin min khardal aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin mihqaala dara in la eg oo khayra ama oo shara ninka maalintaa banka qiyaame isagoo wata tega laga dulmin maayo baa ilaahay lagu xadgudbi maaye waxa uu la tegay baa laga abaalmarin doonaa waayo ilaah caadila maalintaa ka talinaya maxkamadaas mid laaluush qaadanaya mid laaluush la siinaya mid shafaacad maaragtaana ilaahay noo ergee markaa la odhanaya meeshu ma taagna waxay taagan tahay waa maxkamad ilaaha caadilka ayaa kala saaraya khalqigiisa nin walba camalkiisa marka hore lagu dhaqaajinaya deedna ilaahay tabaaraka wa tacaala shafeecadda malaa'igta iyo shafeecadda ambiyada iyo shafeecadda culammada kadib ayaa la bilaabi doonaa markaasaa ilaahay odhan doona agtayada hal xasana ayaad soo dhigato kuu taalle oradoo halka camalka lagu miisaamo teg baa lagu odhan doonaa waxaa la soo saaray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bitaaqad warqad yar oo ay ku qoran tahay shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh dadna markaasaa la qaadi markaasuu leeyahay maxay intay kaga dhacaysaa kelmadan warqadan yari 99 register oo midkii la furaba uu leeyahay ilka aragtay maxay ka gaadhaysaa markaasaa la odhan doona uxdur wasnaka halka camalka lagu miisaamo adigu iska teg markaasuu la keeni doonaa 99kii register xaggan ayaa la saari doonaa kelmadii towxiidka qalbigiisa ku jirtuu la yimidayna kafadda kalaa loo saari buu nebigu yidhi falaa yadkhulu maca ismi illaahi shay ilaahay magaciisa wax ka cuslaanaya ma jirta buu rasuulku yidhi kalimatu tayiba dad muslimiina oo shahaadanaya oo weliba diintii danaynaya oo masaajidii camiraya oo diintii baranaya oo diintii dhagaysanaya oo diintii ka hadlaya ayaa ilaahay naga dhigay kam nicmada qadarkeyga maba garan karnaba maanta inaku dadka ahla dunyuhu adduunyadooda qadarkeyga way gartaan magaaladan aad ku nooshaan lacag suuqa lama maro waa sugnahay dahabkana warkiisaba iska daaba sida dahabka iyo lacagta qiimaheega loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimaheega qadarkeega intoo la garto in loo ilaaliyo ma qadaru llaha xaqa qadrihi ilaahay cadamadiisii macrifadiisii cibaadadiisii uu xaqay nooga lahaa umaanu caabudin umaanu garan markaasaa ilaahay ludfigiisa iyo karamkiisa iyo dulqaadkiisa ilaahay nagula tacaamulaya waa ilaa acmaal aan mutaysanay inaan arlada dusheeda aan ku joogno ma hayna maanta laakiin raxmaddiisaan ku joognaa dulqaadkiisaan ku joognaa ludfigiisa ayaan ku joognaa asturkiisa ayaan ku joognaa yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix waa munaajaadkii nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii markuu la munaajoonay uu ku ducaysan jiray yaa man adhara aljamiil wasatara alqabiix ilaaha quruxdaydii sifaadkaygi wan wanaagsanaa intii wanaagsanayd ii muujiyey ee intii ceebtayda igu ogaana ii qariyayow allahaasaa mahadla buu nabigeenu ku ducaysanaya habeenka markuu ilaahay la munaajoonayo
نعمة انت عن هاي السنة للربعين نيجن انت نجمع قنها ايجن انت كما قنها ايجن دت كما انت مسلمين تو انتو دبدن وعيا نعمة انت كما قن بيجا يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيسبق صبغة في النار ثم يقال هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط dadkii adduunyada soo maray min maalinkii adduunyada la abuuray ilaa saacada qiyaamadu ay dhacayso kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa ayaa banka qiyaamo la keeni buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam laakiin isagoo ahlu naar ayaa la keeni doonaa oo naar loo sii wado hal mar kaliya intoo la soo qaado ayaa naarta la gelin doonaa naarta la gelin waa laga soo celin doonaa markaas la weydiin doonaa oo la oran doonaa waliga adduunyada intaad ku nooleed barwaaqo iyo nicmad ma ku soo martay intuu ilaahay ku dhaartay buu leeyahay waligay nicmad iyo barwaaqo haba yaraatay aanu ma arag buu leeyahay waa keena dadkii adduunyada soo maray waa kii ugu nicmo badnaa ugu barwaaqo badnaa hal mar oo jahannamo la geliyo laga soo celiyay ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay mar kaliya nicmada adduunyadan dul taala ee dadku maanta nicmad ay moodayaan ee markii nicmad la hadal qaadaba computerkeena ay ka soo baxayso adduunyadu maanta nicmad markaan hadal qaadno waxa maskaxdeena markaaba ku soo degdegaysa aqal weyn iyo gaadhi weyn iyo lacag weyn iyo darajad weyn iyo reer weyn iyo islaam weyn baa qalbigeena ku soo degdegaysa nicma salaada jamaacad ku tukatay baa nicmada hadalka ilaahay la noo sakhiray ku hadlayna baa nicmada maqalkaaga aad u sakhirtay ilaahay diintiisa inaad maqasho baa nicmada sujuudaad sujuudaysid baa nicmada carabkaad ilaahay kaga shukrinaysid baa nicmada gacantaadaas aad isticmaalaysid baa nicmada nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa arkay nin labadaa gacmood halkaa ku go-an labada lugoodna halkaa ku go-an indhalo oo weliba aan waxbana arkaynin barasloo jirhkiisu cad yahay oo leh ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday ilaaha iga ilaaliyay baan ku mahadiyaa buu ku ducaysanayaa markaasuu nabi ciise calayhi salaam ku yidhi balaayada adiga kaa maqaneed ka alla baryaysaa maxay tahay waadigan gacmihiina waad laadahay lugihii waad laadahay araggii waad laadahay midabkaagii waad doorsoonyaho waa baras baad leedahay waa maxay nicmada adiga dhibaatada dadka kale ku dhacday ee balaayada ummadda kale lagu riday ee adiga ilaahay kaa ilaaliyey waa balaayadee buu aad sheegaysid wuxuu yidhi aniga ilaahay jalla wacala wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran qalbi waxa ilaahay igu deeqay mar walba ilaahay aan ku xasuusto ku haya cadamadiisa iyo maxabadiisa iyo jacayladiisa iyo carab waxa ilaahay i siiyey mar walba aan ku haya dikrigiisa iyo taacadiisa miyaynan balaayo ahayn buu yidhi ilaahayna laga magan galo dadka ilaahay quluubtii intuu siiyey qalbigoogiina ilaahay ku garan la carabkiina ilaahay uu siiyey carabkoogiina ilaahay ku xusi laha inagu maanta nicmad markaan maqalo waxa maskaxdeena markaaba ku soo degdegaysa adduunyada dhalaalkeega dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaa ee ugu barwaaqo badnaa laakiin maxay ugu taallaa ayaan daro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay iyo rasuulkiisa garanayn laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wabi'sa almihaad ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay weligoodba gaaladan arladan ay kolba dhinac u gagadoomayaan ee kolba waxay technology ay soo saarayaan ha ku degin baa nabiga lagu yidhi ha ku degmin waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi waxaan darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi ha cunaan ha ciyaaraan ha iska tuntaan iska dhaaf baa nabiga lagu yidhi gadaal dambayse ogaan doonaana baa ilaahay yidhi mataacun qaliil in yar weeyaan raaxada adduunyadu hadday haystaanna in yar bay haystaan uma ma'waahum jahannam halkay ku hooyanayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah kii adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa ugu nicmo badan laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaah iyo rasuulkiisa aanan garanayn isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan u sahay qaadan nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan
adigaa indhaqabee bini aadanka soo badbaadi la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisii buu u arkay dib u socodnimo. afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahadaa am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi. ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugood ee caadiga ku socda weeyaan. ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacayo, diintay la yimaadeen iyo shareecadoodana qaadan maayo, amarka ilaahay qaadan maayo, nebi maxamed dariiqadiisii mari maayo, dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo ninka yidhi waa nin yidhi madaxaan ku soconayaa. madax ku socda weligii meel ma gaadho. adduunyada dadka soo maray buu ahaa kii ugu nicmo badan ee ugu barwaaqo badnaa. hal mar keliyo naarta la geliyey buu nicmadda adduunyado dhan ku halmaamay. wayutaa biashaddi nnaasi buusan fi dunya min ahli ljanna wayutaa biashaddi nnaasi buusan في الدنيا من أهل الجنة فيسبق صبغة في الجنة فيقال لك هل مر بك شدة قط هل مر بك بؤس قط فيقول لا والله يا ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث معني سوها ذاتك الدنيا الصومري كي أقول لبعض هذا بدنا أقول مشاكل كبدنا كاسا بنك قيام الله كان ابو نبي وريسوغو لكن جنة الله سيوض أهل الجنة. هل مركلية جنة الله تسن أما اللي قلين يسبق والله قلين مركلية الله قصوا قبن مركاسا الله ورندونا ولقا يا الله انت دوية كن وليد واحد بعتاه واحد مشاكله واحد مصيبة مالك ولا تي انتو إلهي كل دار تبورنا يا مي ولقا دبعت ما بارك بوليه. وانا كي وادتك الدوية الصومر كي أقول دبعت هذا بدنا كي حقي سفاقة إيا دبت إيا مشاكلكو إيا فقركو وكبنا ويان إدتك أقولنا لليتي حقا نلش مادقة مركا لقاها الله ظاهركا صدا سوكاها لكن قدها وكرا حيسني ظاهركا لأنه لشو من نوامد ظاهركا كو تعلق ده مادده من نوامد قدها قال هذا إلهي مركو نبي يقولي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مركو نبي يقولي قال هذا جنكم مجران جنة ونبي يقول شيء وحويان شهوات كوجي الدنيا كو قدنيا ويان وحبك حرام ما هيك وحي الربان بيعونيان وحي الربان بيعبيان سيد الربان بيوسعونيان وحي الربان بيداونيان ماشي الربان بيمريان وحي الربان بيفوليان وحي الربان بيكوهليان وايو إياك ما ركتاني حلال إيا حرام توقفك مسلم كالله صدق جي شريعة داس قفك مركو أشهاتو إيه وإسلام نمضى السوقلو أي حلاش إيا حرام توقفانيسا مربح الدو قال يهي إلهي قرنين ورسول جيسي قرنين وشريعة دي دين تآمن سنين شهوات ديسي أدوية نكو قدن يساقو مركا جنة ديسي وحالكن مالين تو دنتنا جنة ديسي وكبحايا وجهنم الله قاضي يا إساقا مركا ظاهركو كرا حيسنا يا ظاهركا أقل وناكسن قاري وناكسن قبر قروح بدن در قروح بدن ودن قروح بدن نولل ظاهركا كقروح بدن لكن قدها ويكأويان أما مسلم كمياه مسلمكو ظاهركا هدي حتى ونولشيسو كتو سنين ودلقيسو بربرسان يهي وأباروه كبدا يهين وعلاده كبدا انتهي وفقرك كبدا يهي وبكتانته كبدا انتهي والرفاتك كبدا يهينا قفو مسلمكو قدوه كراحي سنيا تلقصان اني شاقي نمان عدانا أوضل حيستيالا حيب بيمريان مال حيبه xeebtii waxay ugu tageen nin muslim oo dhalinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yiraahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yiri waxaan ahay kalluumaysto baddaan ka kalluumaysanaya oo khaydkii baa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi لأنه وان لقطة إذا دقاقي وان كعي وان صوصارا وان سككر صدا دور حبدونا وان قاتار هيركي كانوا جيابو كيدي
way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu yidhi maxaan ka dhigaa waa qiso mathal yani waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabagaabaad badweynta ku tuuran halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaasuu yidhi kadibna waxay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad marka dambe iibsan doontaa engine yar baad motor yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 oo xabadood markaasuu ku yidhi kadibna markaasay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaasaad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamad wadanka ka noqonaysaa oo kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu odhan markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaasuu yidhi kadibna dhowr sano sidaa u shaqee haye lacagta ururi baanka dhig kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xageega fadeed baan idhahnaa Jabuuti fadeed kaabaad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa dadna waxaad soo qabanaysaa dhowr kun xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo waliba khayraad badan oo badda ku jira markaasuu yidhi kadibna gobolada wadanka oo dhan baad ka furanaysaa markaa branch meelo maaragtaane aad ku iibisad kalluunka wadanka dhanba kalluunka adigaa siinaya markaasuu yidhi kadibna muddo sidaa u shaqee haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka samaynaysay markaasuu yidhi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala daraysaa markaasuu yidhi kadibna qasri weyn oo vilaayaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi wuxuu yidhi ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi soonigii hurday maa iminkadan waxaan ka wadaa macna isku aragti ma nihin noloshan daahirka maaha nolosha muslimku ibnu taymiya raximahullah ayaa yidhi inna lilaahi jannatan fi dunya adduunyadan dusheeda ilaahay jannuu ku leeyahay ninka jannada adduunyada aanan gelina jannada aakhira ma gala buu yidhi jannada adduunyada waa maxay waa xayaat aliimaani walacmaal inuu qofku noqdo qof qalbigiisa ilaahay mar walba ku haya xuska ilaahay oo qadarka aaminsan raaxadu maaha nolosha daahirka ku hagaagta tan maanta adduunyada dadku masiibo u yaqaanana masiibo maaha adduunyada masaa'ib way jirtaa laakiin masaa'ibta aakhirada masiibada adduunyada jirta masiibada ugu weyn waa dhimashada bal wax ka weyn sheeg masiibo way jirtaa adduunyada masaa'ibtu way badan tahay abaartu waa masiibo bugtaantu waa masiibo ilmahaagii oo kaa dhintay waa masiibo islaanta oo kaa xanuunsata waa masiibo ganacsiga tijaaradii oo kaa baabada waa masiibo hatta ardayga jaamacadaha dhiganaya hadduu imtixaanka waayo masiibo u arkaa laakiin masaa'ibta adduunyada inagu helaysa masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan waa adduunka markay noqoto laakiin aakhire markii la joogo masaa'ibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah markay naarta ay galaan qur-aanka ilaahay noogu sheegay wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk qaala inakum maakithuun 40 sannadood ayaa ahla naarku naarta ka dhex dhawaaqayaan ay leeyihiin yaa maalik waa malaga furaha naaraha haya bay ku leeyihiin rabbigaa waxaad noo weydiisaa inuu nafta naga jaro bas haska dhimanaba maxay dhimasho u tamaninayaan bal ii sheeg dhibaatada ku haysata ee kale ayaa ka weyn dhimashada marka adduunyada markii la joogo masaa'ibtan adduunyada maan dadku ay masiibo moodayaan ta ugu weyn waa dhimashada weeyaan aakhire markii la tagana masaa'ibta aakhire masiibada ugu yar waxay noqon doontaa waa dhimashada weeyaan saa darteed adduunyadu way nagu weynaan agteenna waxaa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamku muslim
aakhiradu waa inay nagu weynaato waa la dhimanayaa dhimashada waxa ka dambeeya ha kula weynaadaan qabri baa ku sugaya qiyaama ku sugaya janniyo naar baa dambaysa ilaahay baa lagu hor joojin doonaa noloshaadii adduunyada 100kii sane lagu siiyey 60kii sane adduunyada lagugu deeqay 50kii sane adduunyada lagu siiyey waxaad ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa daqiiqad baa lagu weydiin doonaa Ataa as-Sulaymi rahimahullah ayaa nin taabici abu haayo aad u murug badan salafu saalix waxa lagu yiri ya sheekh murugtaadani aad bay u murug waad murug badan tahay dadka maxaad dheer tahay baa lagu yiri waa nin kale yiri 30 sano isagoo qoslayna lama arag 30 sanana samada ma eegin baa la yiri dhulka muusada u eega u soconayay ninka meel u cadahay meel ka madow dadkaasi aakhirada ku weyneediyaka markaasuu ku yiri al-mawtu fi 'unuqi والقيامة موقفي والموت في عنقي والقبر بيتي والقيامة موقفي وعلى الصراط طريقي ولا أدري وربي لا أدري ما يصنع بي وربي لا أدري ما يصنع بي وحيدي محان نمرغونين محان لمرغونين بويدي غيري دي باقورتا يسوران قبرنا وأقل كيجي قيامها واللي جوجين دونا أفرتن كن أو سنبري ابن عباس وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة أفرتن كن أو سنة ابن عباس أيا الجوجي دونا بنك قيامة طبعا كن أو سنة الحساب تقول دماني دونت بل ساعة هلك جوكسو مالين ما جوجي كرنا مال أفرتن كن أو سنة أيا سيدا الله تاقنا ابن عباس ومفسر في القرآن وح كهري وح عددك وح كليلك كهرين يا مجرو meel la fadhiisanayaa ma leh meel biyo laga cabayaa ma leh geel la harsanayaa ma leh yawma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawmaydin sha'nun yughniihi waliba waa maalin baa ilaahay waa maalin habeen lama sheegin yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadaah yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يعض الظالم على يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ذلك يوم التغابن قرآن قال له شيء وايوب ومالين كليا حبين ملا مالين تاس ومالين مالين تاس هاي سوق يسبوري جد كسرنا وطريقا ظلم رايي ربي جاي مركل اللي هرجو جين وحكى له كل ما قال نبودي لا هبين بي سيحدان ولا مالين بي سيحدان ذاتك آخرته أي قلبي قوغا كل بعدي أياك قصلي لما أركن أياك أدو يد السنة لما أركن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة وهرير السعودان أيا ميل مزبلة ماشن قشن قبك الليلة وسخذ الله الصبو أيو عمر اسكورتاقي markaa bay saxaabadii iyo raggii la socday ajilada ahaa way dhibsadeen ilaa cimaamadahoogii ay sidaa yidhaahdaan markaasuu cumar ku yidhi haadihi dunyaakum allatii taxrisuuna calayha adduunyada aad maalin iyo habeen aad u dadaalaysaan halkay ku dambaysaan na tusinaya eega buu ku yidhi waa taas adduunyadu qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh waxaa qiimo leh waa diin ninka diinta qiimeeya qiimo leh hegtiisa ina akramakum cinda allahi atqaakum iimaanka ilaahay nagu qiimeyn hadba intaa diinta islaamka aad qiimaysa adna ilaahay ku qiimeyn halka diinta islaamka aad digtaa ilaahay adigana ku dhigi maanta muslimiintu halkay joogaan ilaahay ma dhiginayo kaas dhigay yaayna dhigay halkan joogna maanta camalkeena na dhigay adaa is dhigay lima iyo kama baan ku jirnaa maanta dhexdeed lima iyo kama dowlatul cabbaasiya ninkii mutawakkil la odhan jiray ayaa dad muslimiin ka qaatay dhulkoogii iyo beerahoogii markaa bay dadkii muslimiintu intaysa soo raaceen gabadh walaashii oo la dhalato nafiisa la odhan jiray bay ku yidhaahdeen walaalka aduu ku jecel yahay aduu ku maqlaaye beeraha yagii tijaaradeedii xoolaha yagii buu naga qaatee nagala hadal bay ku yidhaahdeen
markaasay ku tiri saafcalu insha Allah waan yeeli doonaa sidaas والله hadli doonaa bay ku tiri halkii iyagoo la taagan buu boqorku dariiqa soo maray baa la yidhi markaasay ku yidhahdeen waa kan markaasaa boqorkii lagu yidhi xaraskiisii baa ku yidhi walaashaabaa meesha taagan walaashaabaa intan taagan oo halkan joogta markaasuu ku soo lexdo walaashiibuu u yimiday markaasay dadkuna ku soo urureen hal erey bay ku tidhi waxay ku tidhi lima markaasuu ku yidhi kamaa markaasay kala dhaqaaqeen markay ka dhaqaaqeen dadkii markii horeba ninkan ka cabanayay kaga cabanayay ayaa waxay ku yidhahdeen gabadhii waanakii kuu sheegnay kugu soo ashkatoogne isagana waa ka ilaahay meesha soo mariye miyaad nagala hadashay bay ku yidhaahdeen markaasay ku tidhi waanigii la hadlay ma isaguna waa kii ii jawaabay markaasay ku yidhahdeen lima iyo kamaa unbaad istidhaahdeen maxaan ka garanay bal noo macnay bay ku yidhaahdeen markaasaan ku idhi lima tadlimuuna annaasa maxaad dadka u dulminaysaan ood waxoogii xoolahooga u qaadanaysaan baan ku idhi markaasuu iigu jawaabay kamaa takuunuu yuwalla calaykum waxaad ku tidhaahdaa sidaad ininku aad tihiin ayay madaxdiinuna noqonayaa ka dhabuu yidhi waxaan walaalkii hadalkiisa ka fahmay bay ku tidhi ininku ilaahay u toobadkeena haddaad hagaagtaanna madaxdiinna hagaagi haddaad bacnaataanna madaxdiinna bacnaan hadduu camalku hagaago xaaladda adduunyadoo dhan baa hagaagi hadduu camalku naga xumaadana xaaladda adduunyadoo dhan baa xumaan acmaal baa ilaahay doonayaa camal halka maanta muslimiintu ay joogaan camalkoogaa dhigay haddaan soo noqonnana ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmaddiisa waa waasic watuubuu ila allahi jamiican ayuha almuuminuuna lacalakum tuflixuun baa ilaahay yidhi soo noqda baa ilaahayna leeyahay dhammaantiin saaad adduunkan iyo aakhiro aad u liibaantaan haddaan liibaan doonayno waa maxay waa inaan ilaahayna u soo noqono haddaan cidhiidhiga rabna inaan ka baxno oon faqriga ka baxno oon dulliga ka baxno oo qaxootinimada ka baxno oo gaalada muslimiintu ay gacmaha hoos haystaan haddaan rabaan inay ka baxaan waa in ilaahay loo soo noqdo oo ilaahay u soo noqda waa maxay macnaheegu kitaabka ilaahay u soo noqda sunnada nebigiina u soo noqda calayhi salaatu wasalaam diintiinii u soo noqda see diinta loogu noqon karaa diinta sida loogu noqon karo waa maxay inay noloshiina diini ay timaado dadaal baa ilaahay ku xidhay diinta ilaahay u soo dadaala weeyaan adduunyadan maanta aan ka daba dhacayno yaa bixiya bal ii sheega yaa bixiya ilaahay baa bixiya qul illaahuma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إلهي ما بحية عد كلمة بحس كو فقير كدقة وفقير كو غني كدقة وغني كو عزة وعزيز كو دلين عد عزين كرتا ملا كو إلهي نعمد وقرتنا عد نعمد كوي عين كرتو كقادان كرتا مجرتو كي إلهي جل وعلا هدينا عد ما باديين كرتو كي إلهي باديين عد ما هدين كرتو كي إلهي تبارك وتعالى وكرو قادو عد وصو ما دقي كريسو كي إلهي وصو دقي عد كرو قادي كريميسو يحي إلهي بحيو عد ما منعين كرتو وحي إلهي منعين عد ما بحين كرتو عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيا مركو داوين هذي إنا جيسيبا كويد آبا دردارا كما الضنبيس يسيبو يري وهذه قوين هذي وحنوسان تحي markaasuu yihi waa hagaagay soo fadhiisiya waa xanuunsan yahay waa dariix oo jiifa laakiin qowlkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo jiifa inuu sheegu diidan yahay ixtiraam uu hadalka ilaahay ixtiraamayo uu hadalka nebiga xurmaynayo ayuu yihi soo tiiriya waa la soo tiiriyey markaasuu ku yihi dhegayso inankaygiiyow innaka lan tajid xaqiiq innaka lan tajid إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا المعني صحابه كيري بينك يجي ويدقيسو إسلام ماذا حلاوة إيمانك معانكيس لا إله إلا الله معانك مادة من حقيقة ذو قلبك ميقل إلى أدقرتا وحكو دع السنة كوما دافين waxaa ku dhaafayna sana kuguma dhaceen arkaan aliimaan rukunka ugu dambeeya buu u sheegay
وهلك ما أنت دين المسلمين تكذا وعنتها إلا من رحم ربي مويانه إيمان بالقدر إيمان بالقدر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وها الدنيا كدع يا شر يا خير ووحي لها قدري وياه موضوع عصو كله حقيقة الإيمان إيمانك معانكيسا لا إله إلا الله حقيقة يدو قلبك ما يسنقل إلى أدقرتا وحي كدافي سنكو مدعين وحكو دعين سنكو كما سيغان هذا الكان أنو اسكمله بوكيدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيان كما قال يسقى خلقك إلهي مركو أبورك أبوري شيء أبور إلهي أبوري قلم بوها مرقاسا إلهي كوري قلم كي قر مرقاسو قلم كوري يا ربي محان قرأ اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة هذا المعني سوها وحال قرتابا لقيري إلى ساعة قيامة أيضا عيسو وحا أدوية كدعي ودن قربا لقيري عقيدة داس اعتقادك نوع عاصبو يري صحابي قاس وحال نبري نبي محمد عليه الصلاة والسلام أظن اعتقادك قبل حداد دمتد وحاد وقت النار بتكون عدي أقوب كيدي إيمان بالقدر وحاد كوكو دعايا وحاد هيستو وحا كامغن وحا أدوية يسبدل كدعايا يا كينا الله باكين عيدك لما كنت وحا إلهي لها عيدك لها ونسبين maalintii habeenka ilaahay baa keena nidaamka caalamkana gacanta ilaahay ma ana gacan kale kuma jiro marka iimaanka iyo diinta barashadeeda waa loo dadaalaa ama adduunyada waa inta ilaahay noo qadaray weeyaan si fiican hadalka u dhageysta diinta dadaal baa ilaahay ku xidhay adduunyada miya waa inta ilaahay ku qadaray weeyaan hal مثال عجيب ani sheegay oday maalqabeene hadduu dhinto dhaxalka ayaa qaata ilmihiisa ilmahaasi xoolahan wax tacab isaga kama gelin laakiin ilaahay baa u qadaray ilaahay baa u qadaray waa adduunyadii laakiin nin caalima oo muxaditha oo rabbaaniya oo ilaahay ku xidhan oo weliba karaamo leh oo ducadiisa la aqbalo oo wali ilaahaya hadduu geeriyoodu dhinto inankii uu dhalay cilmigii xadiidkii qur'aankii karaamadii taqwadii qabuuliyaddii uu lahaa ma ku wareegi kartaa xageega kama dhacdo ma dhulkeena ka dhacdo war ma ka dhacdaa dhulkeenna ma jirto waayo waa diin ta hore waa adduunyo tan waa diin diin waxaa ilaahay shardi uga dhigay in loo dadaalo bas haddaad caalim rabto inaad noqoto waa inaad cilmiga barataa haddaad muumin noqoto iimaanka waa la bartaa haddaad dooni mutadayin inaad noqoto diinta waa la bartaa islaamnimada waa deeq ilaahay ku siiyey laakiin muslim dhaba inaad noqoto adi dadaalkaaga ku xidhan tahay islaamnimadu waa shareecadda muslimkuna waa shaksiga islaamnimada ayaa inagu deeqay imika yaa inagu deeqay ilaahay baa inagu deeqay soo ma laakiin muslim quman inaad noqotaa maxay ku xidhan tahay dadaal bay ku xidhan tahay yarxamuka allah dadaal bay ku xidhan tahay saa darteed bay culimmadu leeyihiin adduunyada waa deeq ilaahay bixiyo dadaalna waa lagu helaa dadaal la-aanna waa lagu helaa bal ducana waa lagu helaa oo nebi sulaymaan mulkiga adduunyada ma dadaal buu ku helay mise ducuu ku helay bal ii sheega rabbi اغfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab maxaa ku xiga fasakharnaa lahu riixa tajri biamrihi ruqaa'an xayثu asaab markiiba ilaahay waan aqbalay buuhi ducadiisii mulkiga adduunka o dhan baa gacanta ka gelinay maaha lacag wuxuu ilaahay weydiistay maaha dibloom iyo tacliin yar maaha waa mulki weliba isaga dabadii cid dambana aan u qalmayn ayaa ilaahay iyuu yidhi ilaahow isii dembigayga ilaahow dhaaf mulkiga caynkaasan ilaahow isii ilaahay wuxuu yidhi markiiba wuxuu yidhi waan ka aqbalno ducadii waan siinay mulki intee leeg baa la siiyey markaa
هذا الشمبرها الله بري قرآن جد هذا الكيجيب مغلي دبيلها الله سخري جنك يا شياطين تي عفاريدة أيا قعنتي سيلهاي سوقلي أو أمركي سي بدها أنت كو قلان جواهر تهدامن كي وصو صاريين أقلد ودسيين ودوين كي سمينيين وحلي وحو أبهضور النبي سليمان جنك يا شياطين تو أدرايي وحلي وحا شمبري هوضا الدولو دنا كوركي سي سدا أسعون جرين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأكد عيسى دعاداس ملكي عالم كودن إلهي انتو السوق هذي أيا إلهي النبي سليمان قعنتك قلي بلا شروط راح شروط لكم حدين مرقاسا إلهي هذا عطاؤنا تنوى ضيق ضيدي فمن أو أمسك بغير حساب هذا دونت قال ليسو وعدا دونت كو قال ليسو أو سي هذا دونت حيسبا لقو يدي وأحمد لقا ويدين ما يتن لقو بحسابين ما يبطن وأدويو لكن قصة النبي إبراهيم عليه السلام لقيسو والنبي إبراهيم وخليلك إلهي جل وعلا ولبا دعوة امتحان بو صومري مركو ويديست إلهي جل وعلا إن لو زياديو إيمان كيسا إن معرفة ربك أي أكرر مركو ويديستي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي محاكو حكته قال فخذ 4 من الطير شروط بالهور دغاي سغا افر شمبرود لا كالي با لغو يدي هدا دونيس ايمانك ان كو زيادينو معرفه ربك اني كو كوردها هدا دونيسد افر شمبرود سو قبو مستعدون ديار موتين دي يا هل كانوا السعوديات فهمتين سوما فخذ 4 من الطير أفر شبرات سوق بالغيري علم اليقين ولا يهي لكن حر عين اليقين وأركو علم اليقين ولا يهي أولم تؤمن بالغيري ما درمين واحد انتي سانو صونو لينو ميانا درمي سنين إن صو صاري كرنو إن أبوري كرنا مركله إن نولين كرنو قال بلا ماي والرميسان هاي بودي ربي جيو ولكن ليطمئن قلبي وحربا إن قلبي جي إيمانك يا معرفة ذاته أي سيب يدكتو من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى أركان ربابا شيء الله سمينا إلى أركان ربا وهذا أفر شمبر الله كالي بالغو يدي وشرط قاس وده الدأوين ولبا أفر شمبرود ولبا نسكن نوع هاي بعلماء ولادين أو كلا نوع ومد والبا ودن قونية ميل قونية لقى سوق قبنايو وده الدأوين سوق قبل شديدو ما يوفضوا ده من سوق بيرتاهي سوق كوا عدك تاهي محل لو شيء قصدا حكمنا قرآن الله هنا فهم سي قرآن وين تدبر كوا آخرنا موقتها وحلا ينوش شيء يا سليمان الدوية ودن إلهي ويديستينا بلا شروط باللغوسية وهي أدوية قيمة ملئ لكن إبراهيم وح قيمة لونه ويديستي كدقنتهاي شروط ما كل حد نيسقها دينتو قيمة لا ده هاي شيء قيمة هلا وح لغو قرتا مركز أدوغو قيم وح قيمة أكتر هذا لا هتقشتي وضيبا إن كيسو كيري أبا أنت أو سنان مصاريف كسينة يه بل ما أنت كل شلن أبا إيكين بكير كل شلن ديدت كاغان ربا إنان عناه كوي روعي المقالو ولقي شغاء نركن أغلق ويدي ونكو كوري
ودنا عبانو دافين مركزو تجيب على هو يدي بكل هو يكون شلنسيو محد كدقيو أنا أباهن هو يسي ويسي odagii aabihii buu u geeyay intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu aabo waa tan lacagtii hoo oo ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1000 shilin ku tuuray odagii markaas waliba inankiisiiba hoosta ka yareego saas u eegay markaas haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal bari toolana waan 1000 shilin aabo waan ka rabaa fariid baaba tahay adigu shaqada haba taqaanaa 1000 shilin kan hooyadii buu ku yar wareego hooyo lacag isiyo maxaad ka dhigay oo abaan way siisay hooyo moogta hooyo macaan oo keeno oo ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray bul maalin muddo kadib uu haddana yiri bal maanta aabo fariid baaba noqotay oo tago hooyo 1000 shilin isiyo war lacagta bariyahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma ku sheega aabba igu yiri ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagan marka u geeya 1000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallahi dab hortiisa ka baxayo uu ku tuuray isaguna markaas ay ku tiri war lacag la gubo anigu ma haye orad magaalada u gal odayga waa midaal yani مثلا حتى تفهموا shaqa tagay dad marka wuxuu arkay mana qaldisay uu arkay ورستو مالنتي مسات سو شقيسايو عينكاس oo ku shilino uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimo marka uu keenay odagii aabo ho markaas uu yiri waliba hadal buu raaciyo wuxuu yiri aabo lacagta dabka ka ilaalide nabiga sallallahu markaas uu yiri oo maxaa ku jaban buu hadaan ku tuuro kuwii horeba sooniga gubayay ما يابا تانتي هو يكذبون تايجي تانه تانوا ديدت باكو بحبيبي وعن كف وعن وسوقات مثل كاس شيء مركا ومال يا وقت يا عقل يا الدلال يا الرجنمة أي كاجشوا أي قيمه سلا قرطع مركا دين تدلال كيجا دين تأوضتك الله برا ودلال دينيد diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed adiga la fahaantaada oo salaada jamca aad ku ilaalisaa waa dadaal reerkaaga iyo ubadkaaga oo diinta ilaahay aad ku tarbiyadaysaa kasbi xalaalana aad uga soo shaqaysaa waa jihaad waa dadaal waqtigaaga maalkaaga ardayga waqtigiisa inuu diinta barta ku bixinaya waa jihaad man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabil Allah hatta yarji'a maalkaaga waqtigaaga oo waqti yar ka soo goysa oo ilaahay dartii aad u baxdaa kolba tuulo kolba hayjad kolba kolba magaalo aad ilaahay dartii u baxdaa reerkaaga iyo ubadkaagana ay waxay kugu sii sugaan aad uga tagtaa waa dacwad waa jihaad reerkaaga dayac lagumana odhan nin baa nebiga u yimid oo awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa waxau nebigu ku yidhi awrkaaga dabro ilaahayna tala saaro markaad baxayso haddaad 4 bilood baxayso haddaad 2 bilood baxayso haddaad bil baxayso haddaad sanad baxayso reerkaaga mas'uuliyad baa kaa saarana waxay biil ka dhiganayeen meel u saar inaad cidlo kaga dhaqaaqdaa caqliguna ma aqbalayo sharciguna ma aqbalayo haddaad aragteen ood maqasheen mid la yidhi reerkiisiibuu kaga dhaqaaqay bilaa biil kaasi waa tartiibtii dacwadu garan maree dacwadu dhan maaha sidaas ogaada tartiibtii dacwadu ayuu yar garan maray da qolo walba qaar yar mushaddidiin noqdo iska leeyihiin Soomaa oo yar nuura ka uu nuuray markaa laakiin manhajku ma qabo in reerka la dayaco ma qabo manhajku waa manhaju nubuwa wuxuu qabaa nabiga nin baa u yimid alayhi salaatu wassalaam
wuxuu yaa rasuulallah inaan baxaan rabaa jihaadka waa cahdiga nebiga dagaalna waa loo baxayey markaasuu yidhi maxaad u baxaysaa ii sheeg wuxuu yidhi jannaan doonayaa labadaadii waalid mid ma nool yihiin markaasuu yidhi hooyaa ka nool buu yidhi ma iyadoo kaa raalliya baad ka timiday mise iyadoo safarkaaga aan ka raalli ahayn may safarkayga ka raalli maahayn buu yidhi sow janno ma doonaysid haa alzim rijlayha uma aljanna buu rasuulku yidhi ku noqo iyadoo lugahayga qabso u duug u khidmee raalli geli halkaabaa jannada ka galaysa adigu yahay laakiin waxaan leenahay waktigeennaan qaybinaynaa tafaraq licibaadatii baan ku shaqaynaynaa tafaraq licibaadatii amla sadraka ghinan waasudda faqrak wailaa tafcal malaatu yadaka shugla walam asudda faqraka waktigaan qaybinaynaa waktigaas reerkii waktigaa shaqadii waktigaa tacliintii waktigaa dacwaddii waktigaa masaajidkii waktigaa qaraabadii waktigaa ubadkii waliba inaku haddaan dadka af soomaaliga ku hadla wakti baa ilaahayna siiyey laakiin waktigeenna maanta mujtamaceenna afkaa ku hadla intooda badan waktigeenna wuxuu ku daatay maalaayacni buu ku dhammaaday caamadaan leenahay war masaajidada soo gala culummada ku soo xidhma salaada tukada naftiina tarbiyadeeya kaala ilaahay dartii jamaacadda u raaco naftaada soo islaaxi taajirka faqiirka hani oday iyo inan dhammaan ummadoo dhan diinta inaan ka shaqeyno ilaahay baa noo doortay yaa inoo doortay huwa jtabaakum baa ilaahay yidhi huwa jtabaakum ilaahay baa ina doortay muxuu ilaahay noo doortay marka inaad diinta ka shaqaysaa lagu doortay ma aha inaad caabid noqoto keliya laa cibaadadu aday gaar kuu tahay salaadiyo soonka iyo zakadiyo xashku aday gaar kuu yihiin laakiin waxaa ummadda anfacaya waa maxay waa dacwaddiiyo tacliinta ummadda anfacaysa diintana sidaa aan soo sheegnay adduunyada waa ka ducana waa lagu helaa diinta laakiin dadaal baa lagu helaa inaku laakiin waan bedilnay maanta haddaan soomaali naho waxaan leenahay adduunyadu dadaal bay u baahan tahay waa ka adduunyada u soconno waana ka u dhoofayna waa kuwa dhallinyaradeenii badaha iyo saxraaga libiya ay u dhammaadeen iska daba wareeg wadannada gaalada beri annagoo joogno ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo na raac 40 cisho wuxuu yidhi niman yahow 22 sanaan joogay buu Yurub Denmark man 22 sano joogay shaqo la'aan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu yidhi haddaan shaqo raadinayaa niman yahow culumoy shaqo ilaahay ii weydiiyo shaqo yar oo fiican buu yidhi annagii buu taalac noo raacayba ilaa ummadun guri lagu saleeyo bogta markaasaan haddana gobol kalaan tagnay nin waxaan helay markaa isaguna yidhi dalka Mareykanka waxaan ku noolahay 37 sano bal 10 berina raac oo naftaada soo islaaxi oo bal aakhirada dareenkii aakhiro in yar ka ilaahay la soo munaajoonay markaas yidhi 37 sano wadanka joogaa buu yidhi haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buu yidhi waxaa la ii sheegay buu yidhi inuu Australia ka qaraxday Australia aanu dhoofayaayo qola nooli ururinayse culumay ducada igu daray buu yidhi hayo waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama ma Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baan ahay ma sha Allah hageed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ii soo duceeya kii dalka joogay xagu u socda wuxuu ku ducaysay Ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay Ilaahu maru Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ii gaarsi kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno he Soomaaliya ku soconnaa firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihin anaku nin baa yidhi dayax gacmeedkii u horreeya la diray buu yidhi waa kaftan
laba nin baa loogu tegay wadaya xadul fadhida Soomaaliya Hindigii baa lagu yiri meesha maxaad ka qabanaysaa markaasuu yiri ganacsi baan ka yar gelinayaa buu waa dhul cilaa Soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan hay buu nabiga ku salli xagee markaa u soconaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay inaku waa diinta weeyaan insha Allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta Ilaahay noo qadaro de diinta dadaalkeega insha Allah ina ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin Allah inagu anfaco saad noo soo dhaweeysan Allah inii soo dhaweeyo Allah inagu anfaco sallallahu alayhi wa sallam